maadaama cabdicasiis aad tahay gudoomiye ku-xigeenka ururka xiriirka kubadda olombikada Soomaaliyeed waxaan rabaa in maaragtay dadweynaha aad u fahmaan halka daawanaya su'aal mar walba soo noqonaysay xululka qaranka Soomaaliyeed ee ka qayb gala ciyaaraha adduunka muxuu kaga doonaan doonaan gabdhahan maadaama ay yihiin gabdho ku nool qurbaha oo qalabkii lagu ciyaari lahaa haysta oo nolol fiican haysta daawo haysta fikradaas oo ah fikrad aad u fiican oo dhinacayna ka timid runtii ku amaanan tihiin in abaabushaan sida hadda gabdhahan aad ka tiri hawlma ku booqato qaranka Soomaaliyeed masalada marka adiga ahaan maadaama hadda aad soo booqatay awood intee leeg ay u yeelan karaan inay masalaan magaca Soomaaliyeed ee sharafta Soomaaliyeed basketkii oo hore u lahaan jiray qaranka Soomaaliyeed ay u soo celiyaan سؤال آدي هذا قيمة بدن عبد القادر آدي يا دوغو ما حسنت هاي طبعا رويال تي في سؤالها نوعا وكلا هي سيدتك مركا إن دعونا يعني أنا وجود إنسان يعني واحد آدي مرة والبا أن كفر حق إن أنا هنا أنا كقدومي كحجان هان حرير كوبد الكوليج الصوماليات جانس كأن هاي سنة آد أيوة gabdhahan aan xareyno tusaale ayaan ku soo qaadanaya waa markii ugu horreysay fikirkan uu yimaado in gabdho Soomaaliyeed ay xulka qaranka matala la helo waxaynu ka yimid shirka Helsinki lagu qabtay gabdhaha xulka qaranka kubadda kolayga Soomaaliyeed dabcan waxaad dareemi kartaa dagaaladii kadib annaga gabdho ma lahayn ka qayb gal xulka qaranka Soomaaliyeed ee taga dibadda qaybtan maanta jaaniskan maanta aan helno وزائدين يا مورال كان يكر أخذ يا مورال في شعب الصومالي نكر أي مكان تجاه وحد جدا ويرش إن لقيت الله بصر أو قبله حتى هذا جانس هلين إن أي كقيب جان عياره طبعا ميديا قيب وين أي كقارن كرتا إن لهور مري عيارهاس ميديا قيب وين أي كقارن كرتا إن معركتي لحلو ده تايتل له وربا إن كقيب جارتا أنا كفاية سنة جانس كمان أنت عن رويال تي في وحلي رويال تي في وتي في إنترناشونال الصومالي لما هو بدني على ذلك كثير سنة يعني وحن روا إن ما ركت عن وفائدة إنه أن قبلها الصومالي أن كورقة بين أرنتن هدي جانس هلان انترفيو كان سي أي مولاسو حريران حرير كبد الصومالي عادي كل وحن جعلنا إن ونقضوا أنا نحط قول بعدين رجينا هذاتين فكرة شرف سلو عدكي تمرين إلنا فكرة عاد لو فرع Soomaaliya oo dhan oo hadda hum beeshadii ku wada qoran yihiin in maartay gabdhahaas ay mas'uul doonaan qaranka Soomaaliyeed maantana si live ay waxa uga daawanayaan Royal TV anagoo channels kan ku siinay inay Soomaalida ka faa'iideystaan Cabdicasiis ciyaaraha lagu qabto diasporada sida suuki oo kale hadda ciyaaraha hadda aan goobjoog ka nahay Europe Som iyo Somali Week iyo kuwa America si u aragtaa adiga maadaama aad tahay gudoomiyahoodii Olombikada gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda kolay ahaan iyo guddiga fulinta oo aan xubin ka ahay dabcan waa ku amaanan yihiin dadka juhdiga geliyay tartamadan kala duwan maaragtay qabanaya suuki oo aan hadda joogay Eurosom oo aan beritoora tagi doono oo aan ka qayb gali doono ciyaaraha qaybteeda dambe North America oo hadda la soo gabagabeeyay ujeedooyinka loo qabtay inay dadka wada fahmaan waa muhiim ah ahaan lahayd dabcan haddii maamulada qabtana naftigooda in aan annaga naftigeena waxaan u fahansanaa u sheegno way fiican tahay oo TV-gana uga gudbino waxa loo qabanaya tartanka waxay tahay horta waa dhalinyaro waxa koo laga faa'iidaa waxay tahay isdhexgal integration dhalinyaradan dabcan waxay ku wada dhasheen Europe Sweden oo ku dhashay Norway ku dhashay Korea ayuu ku dhashay isku keenistooda waxay tahay annaga sida European hadda ay isticmaalaan dadka marka ay yimaadaan dadka soo guura barnaamij integration yiraahdo u soo biyaan ay leeyihiin dadka meesha deganaa iyo dadka soo guuray isdhexgalkooda annaga dhalinyaradeena Soomaaliyeed ciyaalkeena yar yarka ah ayaan integration u waxaynaa mid waa dhaqan Norwich oo wata mid dhaqan Swedish oo wata waana kala luqad ayada naftigeeda waxa koo muhiimadda koowaad waa integration waaye muhiimadda labaad waxay tahay isbarashadaas markay isbartaan oo isdhexgalaan xiriirkooda ayaa zaa'idaya waxay noqonaysaa inay ka fikiraan waddankooda oo mustaqbalka saddexaad waxa waa qaran Soomaaliyeed ayaan leenahay maaliyadda qaranka qiimaha ay leedahay wuu yaqaanaa cunuga Soomaaliga wuu yaqaanaa markii maaragtay la yiraahdo Rooney ayaa Manchester United xulka qaranka laga saaray markii la yiraahdo Rooney waxa ku soo baxday fadeexad ceeb ah oo xulka in laga saaro halis u yahay يعني ويوجيه قيمها الروني ولا لا مالية قرن كإنجليزك مركا عندك ساس وكلا السوكي وحن ربنا إن كهلنا عنق سوماليات قرن كسوماليات مثلا
Eurosom waxaan rabnaa cunug Soomaalida qaranka Soomaaliya matala inaan ka helno Somali Week maxaa la yiraahdaa iyo Serie A oo London waxaan rabnaa in dad Soomaaliyeed ka helno North America inaan ka helno kuwa basketka xoojiyo in ayagana ka helno وفكرة كنت أدو فيها وهذول الناس أرولسان في خارج المجمع الشمالي اللي هو عيارات طبعا وجدد عندنا عن كلنا وهنكرر الرغبة من حريرنا لصوب يعني حتى العيال كان لو برباريو مستقبل كان يقول حن كدر إلى فكرة ماشى مر سنة دول بلقى قبته معركة عيارها والضمادة كل دول قبتان هل مر لو قبته فكر وحن صوب جيدين لها فضت بل أنت عيجا مع مولود سكوي مادان ولا تشتان بل هنوقفتان سمر كبش اللي حاده كل جون وكل قولا إن نوقفته عيارها لقى صوّد قيب قلو لعاك كواليتي عيارها سيليه جولاي وكل قولا نوقفته أغسطس كله طبعا وافهم كرا يوروب يدقيهين سكولات كحريتان كودي وحيابهودي ayaa laga wada faa'iideysanaya laakiin haddana hadii wixii la cariirin karo oo la soo koobi karo in la soo koobiyo fartiintan inay Royal TV ka helaan aad muhiim ah kulli Royal TV waa naga daawanayaan qaybta sportiga ama qaybaha kala caadi ah ku soo doon doona barnaamijkan waxaan ku siinayaa chance ah in maadaama aad Olympic Soomaaliyeed ku-xigeenkiisa maanta chance u heysano Royal TV fursad fiican in wada anaga hadanahay media Royal TV fursadaas adoo ka faa'iideysanayo anagoo ka wada faa'iideysanayno ummadda Soomaaliyeed oo kungeela la jira Soomaaliyeed meel walba naga daawanayaan maxaa tala ahaan oo soo jeedin lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ku daawanaysa si ay maartay u horumarin lahaayeen nin walba qaybtiisa uga qaadan lahaayeen qurbaha jooga iyo gudaha jooga qaybta sportiga Soomaaliyeed si magaciisa sharaftiisa soo noqoto aad iyo aad ay u mahadsan tahay gabadhii waxaan rabaa horta dhammaan bulshada Soomaaliyeed qaasatan bahweynta sportiga Soomaaliyeed inaan salaan guud halkan uga soo jeediyo anoo ku hadlayo magaca xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga waxaan rabaa qaasatan bahda kubadda kolayga inaan u soo jeediyo salaan taas la mid ah dabcan dhalinyarada waxaan dhihi lahaa jaanis ayaad haysataa waxaad haysataan maanta markaa fiirisid meesha aan taaganahay kala marka aad fiirisid garoonkan waxaan oo kale Soomaaliya way ku adkeedeen la helo garoomo noocan oo kale ah dabcan waxaan haysanaa xaafad walba waxa ku yaala 3 ilaa 4 garoomada noocan oo kale ah waxaan dhihi lahaa marka dadka dhalinyarada ah inay ka faa'iideystaan jaanisadan ay haystaan ayaga ay physical ahaan isu soo dhisaan maamulada ciyaaraha inay ciyaalkan ka dhaadhacsiiyaan inay leeyihiin qaran Soomaaliyeed la rabo in maaragtay qaran Soomaaliyeed birtoola cunugan uu matalo oo loo sheego cunugan inuu diyaar u noqdo maaragtay inuu qaranka Soomaaliya matalo dabcan TV-yada iyo meediyada aad bay muhiim noogu tahay waa meesha kaliya ee dadka wax looga gudbin karo marka waxaan dhihi lahaa TV-gan caalamiga ah Royal in maaragtay jaanis kan hadda na siiseen waa idinka mahadcelinayna marka hore marka labaad sidoo kale jaanis labaad inaan na siisaan jaanis saddexaad na siisaan iyo mid afraad iyo mid shanaad waa qayb kamid ah in cunug Soomaaliyeed soo baxo qaran Soomaaliyeed galo ayaad ka qayb qaadan kartaan marka waxaan qabaa idaacadaha iyo meediyada waa meelaha maaragtay laga soo saari karo Royal TV waxaan rajeynayaa qayb sporti oo khaas ah maaragtay oo barnaamijyada sportiga ciyaaraha laga soo deeyo la xiro kulli waa ku talagaleynaa waana leen waxaan jecelnahay in maadaama uu yahay TV-ga hadda Soomaaliyeed oo maaragtay ku soo biiray hawada fikradaadana way qaadan doonaan annagoo gaar ahaan halka ka salaamayna madaxda gaar ahaan ninka aad telefoonka ku wada hadasheen oo ah Cali oo asagana maaragtay علي طبعا من آدي هذا ونفسنا وجعل إنه هرمريو ميديا قيبه هذا كله دون عيان ما ركت ما كان ولا شيء سنة واحد علي وحرجينا علي ما ركت رويال TV ونقضه مد ما ركت كوباها بدهان الدين كده على ديسة ده كان طبعا أنا شخصيا وأنا في رصدي وأنا كهلا برنامج قصوب حلقة برنامج أنت لقى بدي سبورتي قاصة أنا قاعد سبورتي أيام في سيا سبورتي أنا بالجزائر كله كداونا على سبورتي هذا وحي سيا مركب فيلم كنا قطنا مارتي رويال TV غيبتي سبورتي أنا أسكت بريك إن شاء الله ورجع